badan oo baraha bulshada isticmaalo iyo saacadihaynu kasoo gudubnay intooda badan aada uga falceliyey muuqaal si aada baraha bulshada u qabsaday kaasi oo ay kasoo muuqatay maslaxo iyo sidoo kale jaceylkeeda cusub. arrintan ay dadka intooda badan waxa ay ku dhaliilayeen maslaxo tallaabada cusub ay qaaday iyo go-aanka nolosheeda ay dooneyso in ay u horseedo. waxaana wax laiska weydiinayay catooshere oo maalmihii aynu kasoo gudubnay ku andacoonayay in uusan weli furin maslaxo oo xaaskiisa ay tahay, sidoo kalena uu sheegay in sharciga iyo diintaba sida ay raalli ka tahay in isaga uu sameynayo, taasi oo ah in xaaskiisa wadada saxda ah uu ku qabo uu kusii taagnaanayo sida uu hadalka u dhigay. inkasta oo aynu arkaynay isjid u dhexeeya maslaxa saalax suleymaan iyo sidoo kale catooshere, ilaa imikana ma jirto muuqaal catoosh laga soo duubay oo uu ku faahfaahinayo islamarkaana uu kaga falcelinayo fideogan ay maslaxo kala soo muuqatay inan soomaaliyeed kaasi oo reer muqdisho ah, kana mid ah dhalinyarada reer muqdisho, kaasi oo lasoo fariistay maslaxo su-aalo weydiinna lagu sameeyey labadooda waxa ka dhexeeyo xiriirkooda asalkiisa waxa uu yahay iyo waxa uu xambaarsan yahay, in arrintan ay tahay brank iyo in kale. maslaxo ayaa siyaabo kala duwan uga jawaabtay, inkastoo dhowaanahanba la arkayay catooshere oo aada markaasi u tilmaamayo aadna u caddeynayo in uunan dooneynin in mar kale uu dibadda usoo saaro waxa ay isku qabteen maslaxo iyo furiinkooda, maadaama uu sheegay in uu weli qabo oo xaaskiisu ay tahay isaga xaggiisana ay ka tahay xaaskiisa. waxaana maslaxo su-aalo kala duwan laga weydiiya nolosheeda iyo inankan ama shaqsigan cusub ee iminka kusoo biiray, bal sida ay u aragto iyo waxa ay diinta ka qabto. labada dhinacba waxaan arkaya muuqaal aada loo wadwaday oo labaduba ay iyagu aada markaasi isugu jawaabayeen, sidoo kalena ammaan iyo sidoo kale bogaadin ay ka muuqatay labada dhinac. maslaxona marka la yiri balqeex shaqsigan maxaad ku tilmaami lahayd, wanaag iyo waxyaabo lamida ay iyadu u camiraysay, sidoo kalena isaga dhankiisana uu ka warbixinaya gabadhaasi maslaxo uu ku tilmaamay inay tahay gabar soomaaliyeed oo sharaf leh, qurux badan, lamid ah gabdhaha soomaaliyeed. waa labada dhinac waxyaabihii ay ka jawaabayaan. dhowaanahana waxaan arkaynay in doodan maslaxo imika iyo bahda durdur media u dhexeysay inay imika weji cusub yeelanayso, sidoo kalena doodooda ay la xiriirtay catoosh iyo sidoo kale maslaxo. sida aynu aragnay dad badan ayaa u istaagay marka ay maslaxo aada qayladhaan uga soo saartay, sidoo kalena ay aada caro uga muujisay habdhaqan ay ku tilmaantay habdhaqan aan wanaagsaneyn oo lagula kacay intii ay iyadu ka tirsaneyd shaqaalaha durdur media ee uu hogaamiyaha u yahay ama madaxda u yahay xasan toob. waan ilaa imika ka hadlan arrintan ayaana sidoo kale ay ku tilmaamtay shaqsi aanu wanaagsaneyn, xadgudub kula kacay, sidoo kalena xuquuqdeeda duudsiinaya oo lacag aan u qalmeyn iyada siinaya mishaar ahaan, xilli iyadu ay ahayd gabadha keliya ee bartaasi ay ku tiirsaneyd kuna taagneed udub dhexaadna u ahayd. bal waanu arki doonaa sida xaalku u noqdo, laakiin subscribe inoo saara janalkan inta aanu faahfaahinta qeybaha kale usii gudagelin. laagaree muuqaalkan la wadaaga asxaabtaada, waxaan ku rajeynaynaa in maalinkaaga uu ku wanaagsan yahay, sidoo kalena muuqaalkan meel walba uu kugu soo gaarayo in aad laygtiisa iyo xaqiisa aad siin doonto. waad mahadsan tahay. aynu sii dhaadhacna qeybaha xiga ee doodan iyo falanqeyntan aynu ku sameynayno. fideogan laisla dhexmaraya oo maslaxo su-aalo weydiin lagu sameynayo, waxaa laga weydiinaya wiilkaasi cusub xiriirkooda halka uu marayo iyo arrimo kala duwan oo nolosheeda taabanayo iyo fureenkeedii, maadaama waqti kooban un laga joogo tani intii ay sheegtay in ay kala tageen catoosh, sababta imika ku kaliftay in hasaabo ay sameyso ama ay xidhiidh cusub iyadu yagleesho. arrimahaas oo idil ay ka jawaabtay. waxaana muuqataa in catooshere iyo maslaxo xaalkooda uu beriga dhexe yahay, oo ay u muuqato in gebi ahaanba xiriirkooda uu soo idlaaday, sida muuqato inkasta oo catooshere uu ku andacoonayo in maslaxo xaaskiisa ay tahay, halkaasina ay weli u taagan tahay. dhowaana xilli wax laga wareysanayo waxuu ka hadlayay bal khilaafkoodii iyo waxa uu sababta khilaafkooda usoo shacbaxay, dibadda ugu soo baxay. waxaana uu sheegay in isaga uu markaasi dhinac iska dhigay dood walba iyo eed walba oo loo jeedin lahaa markii xasan toob iyo sidoo kale maslaxo nairobi
ay u soo baxeen isaguna uu la socday. waxa uu sheegay in mas-uuliyaddeeda iyo fasaxii iyadu ay heshay intaba in ay ka yimaadeen dhanka waalidiinteeda, maadaama labadooduba ay isku qabteen arrimo kala duwan oo khilaaf qoyseed ah, islamarkaana uusan wax lug ah ku yeelan sali raatona ku lahayn dabaashii ee maslaxo aada uga cabanaysay muuqaalkii fadeexada ahaa ee dadku ay aada uga faafinayeen laguna dhaleeceynaya ninka saddexaad ee kula jiray baraagta ay ku dabaalanayeen, iyo sida foosha xun muuqaalkaasi uu ugu faafay baraha kala gedsan ee bulshada. haddaba waxay ahaayeen da-yar lamaano soomaaliyeed. waynu ognahay bulshada soomaaliyeed cawaaqibta ay leedahay baraha bulshada oo waayadan dambe ay kusii xoogeysanaysay dhibaatadan kala taga, qoys burburka, khilaafka aan dhamaadka lahayn, isqabaqabsiga lamaanaha soomaaliyeed markay wiil iyo gabar baraha bulshada isla isticmaalo ay ilaa xad doodoodu gaadho mid aanu xal lahayn oo mar walbo igu meereysa oo kale noqoto, oo social media sidaasi ay dadku isugula dhex maraan un ceebahooda iyo waxyaabaha iyagu ay ka hadli lahaayeen noloshooda ku saabsan dhibaatada iyo cawaaqibta ay leedahay ayay ka mid tahay arrintan. waana filaya bulshadu in ay ka waantoobi doonto waxyaabaha caynkan oo kale ah. weliba dhalinyarada soomaaliyeed ee social media muddooyinka ugu dambeeyey aada ugu xoogeysanaya, sidoo kalena noloshooda gaarka ah social media soo gelinaya. waayahay waynu ogeen bal durdur media iyo maslaxo marxaladii kala duwanaa ay isla soo mareen. maslaxii catoosh marka ay qalgaleen kadib, xasan toob ayaa ahaa shaqsi aada ugu ololeynaya guurkooda iyo siduu ku saldhigan lahaa markii ay dibadda usoo baxday arrinta ku saabsan cunsuriyeenta labadan shaqsi oo bulshadu ay kala kulmayeen takoor xagga qabaa'ilka, oo catoosh lagu tilmaamayo inuu yahay shaqsi jireera uusan u qalmin gabadhan iyo arrimo noocaas oo kale ah, iyo xasan toob oo isaguna maalin weliba la taagnaa kamerada guriga catoosh iyo sidoo kale maslaxo, ilaa markii ugu dambeysay labadoodu ay noqdeen shaqaale rasmi oo durdur ka tirsan, sidaasina ay dibadda arrintooda ku timaaday. kadibna waxaa xigay khilaaf iyo haddee waxyaabihii social media lagu arki jiray dad ishaysta, shalayna heshiis ahaa, maantana xaalkoodu uu xaal ahayn. intaba waxaa inta badan lagu arka social media. dhibaatadana waxaan rajaynaynaa inaynu si wada jira uga gudbi doono haddii waqtiga uu inoo saamaxo, alla subxaana watacaala inoo qadaro in marxalada noocan oo kale ah isqabqabsiga iyo fadeexada joogtada ay bulshadu ay kala kulmayaan lamaanaha soomaaliyeed in gebi ahaanba ay soo idlaan doonto. dhammaantiin waad mahadsan tihiin. muuqaalkan mar kale xaqiisa siiya, like inoo saara, janalkan sidoo kale subscribe saara. meel walbo aad joogtaan, si walbo u joogtaanba waxaan rajeynaya in waqti badan uusan kaaga bixi doonin subscribe-ta, in keliya aada nagu taageerto si aynu u gaarno higsigayaga iyo halka aynu imika ku taameyno inaynu gaarno. waad ku mahadsantihiin saaxiibada aynu jecelnahayow.